السلام عليكم دمان أصحابتي مeel kasta ku joogtaan aad ayaan idin salaameynaa salaan kadib warkii ugu dambeeyay ee qarax maanta duleedka magaalada Muqdisho ka dhacay qasaaro culus ayaa ka dhashay qarax maanta ka dhacay deegaanka Xaawo Cabdi ee koonfurta magaalada Muqdisho halkaas oo gaari caasi ah ay miino kula qaraxday ugu yaraan 9 qof oo shacab ah ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen qaraxan tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen meedadkii iyo dhaawacyadii ka dhashay qaraxas intooda badan waxaa la keenay magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka Madiino waxayna dadkii tagay Daara News u sheegeen in dadka dhintay ay ku jiraan ilmo dhalaan ah gaariga uu qaraxaasi haleelay ayaa ka soo baxay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose wuxuuna ku soo jeeday Muqdisho markii laga soo tago dadka shacabka ah ee saarna wuxuu sidoo kale sidii qudaar miinada haleeshay gaariga waxaa lagu aasay bartamaha laamiga wadadan ayaa dhawaan la dhisay balse waxaa bannaan oo aan laami la saarin qaybta dhexe ee kala barta labada seed ee laamiga dadka la socday gaariga ayaa u badnaa caruur iyo haween danyar ah dowladdu weli kama hadlin arrintan sidoo kale kooxdii geysatay oo la aaminsan yahay inay tahay al-shabaab ayaa ka aamustay dhaawacyada waxaa la xaqiijiyay 10 qof waxaana intooda badan la dhiga isbitaalada Madiina iyo Samsam oo hooyo iyo cunug saqiir ah ayaa nolol iyo geeri lagu waayay darawalkii wadi gaariga oo dhaawac fudud uu soo gaaray ayaa sheegay in gaariga ay la socdeen 18 qof oo haween iyo caruur badan dhibaatadan mar walba soo gaaraysa shacabka ayaa waxa u sabab ah kooxdan بريها دمبه لعرب ترى الشباب إن mar walba umada sidan u gumaadaan shacabka ayaa laakiin hadda shacab feejigan oo u soo jeestay in ay iska xoreeyaan iyadoo gobolada inta badan ay kaga socdaan dagaalo aad u baahan maxay tahay sababta ay u leynayaan dhallaanka iyo haweenka maatada ah meeraasadaan dadka ay cadowtanimada kala dhaxeyso shacabka maxay tahay waxa ay galabsadeen oo ay mar walba u qarxinayaan laakiin alla wax walba waa uu og yahay waxayna u bannaan doontaa mar dhow in la soo afjari doono iyaga iyo qaraxyada iyo dhibaatada ay umada Soomaaliyeed gaar ahaan maatada shacabka ay ku hayaan insha Allah haduu rabbi raali ka noqdo asxaabta page-ka noogu share gareeya wararkeena ugu dambeeyay ee Daara News